su-aasha ku xigta hooyadan waxay leedahay ilmahay guur bay gaareen wiilalii gabdhaba wax qorshaha guurkooda aan waxaynan aniga aabahood ma jirto maxaa noola talinaysa arrintaas qofka ka fakeri kara oo ilmihiisa yurub iyo ameerika uu ku hayo guurkooda ka fakeraya hal qof weeyaan waa qofka ka fakeraya ama abtiriskaa gaal soo gala abtiriska ama gaal soo gala maanta arrintaas ka fakertid waxaa kuu fudaanaysa inaad xooga saartid ka fakertid la raadisid say ilmaha guur fiican u heli lahaayeen ilaahay baa subxaana watacaala maqaadiirta haya qofka meel ku dambaynayo og laakiin ayaga dadaal baa lagu faray wiilal badan iyo gabdho badan maantay waxay guursadeen dad ajnabi ah nin baa jiray meel qaraaba ka nahay gabar buu guursaday yurubiyaana laba ilmaha u dhashay ninkii waa xanuunsaday tii allah oo tin waa dhintay islaamtii diinta waa ka laabatay ilmihiina waa kala laabteen waxaana bil iyo ka badan isku haystay aabbahan waa gubanaynaa iyo maya wax muslima xabaalay muslima musliga xabaalaya ilmuhu dhalay baa dhahay aabbaha gubayna maantii guursatay muslimnimay sheegatay kulli qof muslimaha lagu ogaa laakiin waa ogtahay xataa xilligii nabiga sal lla slam dad sekada bixinaya muslimiin ah markii nabiga sal ilaahay u afsaday diinta ka laabtay waxaan dhahay anaga khalaas marka dad badanoo maanta isku hadlaynayno muslim moodayno allah ilaah baan garanaya oo qarsoon ta kale waxay tahay ilmaha meesha aan ku hayno waa ilmo 50-50 ah anu waxaan idhahdaa waxay la mid yihiin qof soo muslima laftigooda because waddan muslim kuma dhalanin bay'ada ay ku nool yihiin maana ka tabar badan ka awood badan sidaa daraaddeed waxaa arkaysaa dhaqanka muslimka iyo dhaqanka gaalada ilmaha ku badan intaas saacad iskuul ku maqan yahay shaaricintaas ku maqan yahay intaas muslim la joogaa waxa uu hooyihii aaba arkaa xilli kooban wey masaajidka inta la geeyaa waa yar tahay marka hooyooyin badan iyo aabbayaal badan oo yurub iyo ameerika ku nool ilmihii maanta waa u qaan gaareen laakiin in badanoo aan arkay kama fakerayaan ilmaha muxuu guursan doonaa qaar baaba ku faanaba wallaahi wiilka gabar caddaan la socda wallahi gabar wiil caddaan la socota ilmahaas ay ilmaha u dhalayaan cidda mas-uulka ka ah oo meesha ilmaha ku beertoo geysay waa adiga akhrina waa la weydiinaya mid baan ku iri yaa waxaasa wuxuu dhahay muslim weye gabar caddaan muslim alxamdulilah waxaan ku iri hooyada abaheed wixii waa gaalo waxaan ku iri ilmaha ma la geeyaa wiikendiga xaafadda marbay kuma radaanba maxaa la soo siiyaa waan ku iri warka baan yidhi guri doofaar iyo khamro laga cunaa xalaal baan laga cunin baa ilmihii la geynaya oo hooyo iyo abti iyo ayiyo u nool yihiin gabar yaroo ilmaha dhashay waa muslim abihi waa muslim laakiin ilmaha xeel la geey ilmaha saas kora ilahay baa garaa meesha ay doonaan midda labaad nin baa jira hadda oo madaxa og tihiin boris johnson wuxuu ku faanaa la yidhi ma dhegaysan in awowgiisa labaad weeyaan oo muslim ahaa weliba muslim kaliya ma ahayn buu dhahay oo turki buu ahaa muslim kaliya ma ahayn xaafid quraan buu ahaa wiil asagoo ninkaa taqaanaa marka haddaad maanta london ama gobollada qaarkood tagtid dad badan baa aragnay oo muslimiin sheeganaya haddaad sii warta asalkiisa aabihiis yamani uu ahaa haye adna abahay bangladeshkooda muslim buu ahaan jiray oo adna maxaa ku dhacay marka generationka nagu soo socda ilaahay baa garanaya waxayna ka bilaamaysaa hortaba inaad ilmaha ahaysid dhaqankii iyo waddanka aad ku celisid iyo bay'ada inaad arrintaas ihtiyaam kugu jira tan labaadna waa in guurkooda laga fakaro celiyo waddankii ku soo daya in adeertiis waa kaasankaga ima geeyo way ku dhihi doonaan waa ku ogahay laakiin qayb bay ka qaadanaysaa in aad heshid ilmo ilaahay subxana wataala hadduu kula garab gabo adduuniya aakhiraba laga yaaba inay waddo fiican kugu qaadaan adna aad ka soo baxdid mas-uuliyaddeeda iyo deeca kuna wixii lagaa saaray laakiin maanta ilmihii noo qaan gaaray inaanan meel u haynin kana fakaraynin taasaa dhibaato ah marka intay dadaasho awoodi weydo dadaalkaa lagu faray adiga inkaasoo kuba taliyaba yurub iyo ameerika ilmaha ku hayna ilmaha ka cesho meeshaa ilmaha jooga xaalkooda ma ogtihiin dhaqankooda waad aragteen niman fara badan waxaa laga sheegay dheheen cayma faamilaa samayso dib u doolaato cid kala guursaday ciyaarka ayaa watagta akhre waa la isweydiinaya marka qofkii meesha ilma keenay waa ilma ku koriyey intay rabaan ha la ekaado wuxuu leeyahay qaan gaari